السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وهذا ولا لهي قالي قامل البوت شوكتان شلك دقة دعوانا سوا فاضمة فيلسن قفك إذن الله دين ورقة فاضمة فيلسنة نسكسو نقد وناكسن يا مركلة يا فيديو عسب حندير رجينا إنها عافيمات قبطان هدان نقول عسب سبسكرايب تناصر هدا سورين ولو شوكتان وما هتصنت هاي ما أنت وحنوضنا إن شاء الله قصة آد قلبي قوتها بانيسا يعني ما أنت نوضنا قصدا waxaa ka sheekeeyay wiilkii ay ku dhacday ayaa ka sheekeeyay wiilkan carab ayuu ahaa wuxuu yiri wiilkani maalintii arbacada ahayd ee shaqadayda soo dhameeyay ayaan waxaan ka soo tagay wuxuu yiri markaan shaqadii soo dhameeyay baan gurigeyga imaaday markaan gurigeyga imaaday baa wuxuu yiri joornaal baan iska soo qabsaday ama jaraa'id baan iska soo qabsaday waa akhriyay uu dhahay marka adu xoogaa akhriyay wuxuu yiri baa qaybta dambe xayeysiinta iyo wixii markaas waxyaalahaas lagu qoraa qaybtii xayeysiinta wuxuu yiri fiirsaday qaybtii xayeysiinta fi ana baarbaarsa u fiirfiirinayaba waxaan arkay buu yiri waxa lagu soo qoray buu yiri gabadh yar oo la yiri buu yiri gabadhan waxay u baahan tahay beer in lagu beero beer ayay u baahan tahay marka qofkii raba inuu beerkiisa ku tabaruco oo caawimaad ku bixiyo si degdeg ah noola soo xiriiro wuxuu yiri lambarkii ku dul yaalay baa markiiba wacay uu dhahay wuxuu markaan lambarkii wacay bay iga qabteen buu yiri qoladii isbitaalka markay iga qabteen baa yiri buu soo idinka ma ahayn dadkii rabay gabadha yarta in beer loogu tabaruco ilmaha yarka markaasuu yidhaheen haa markaasuu yiri aniga ayaa diyaara wuxuu yiri way la yaabeen wax yaab ah ayay ku noqotay markaasay waxay dhaheen buu yiri dad badan ayaa hortaasaas noogu ciyaaray armaan noogu ciyaaraysaa warmaya waxaan idhi idinkuma ciyaaraye run ayay aniga iga tahay markaasay dhaheen buu haddii ay run kaa tahay noo imow isbitaalka iyo dee meesha noogu imaanaysaan kuu sheegayna haye ayaan dhahuu yidhi meeshiibay ii tilmaameen wuxuu yidhi gaadhigaygii baa qaatay markiiba waa orday waa u teg buu yidhi isbitaalkii markaan tegey waxaan tegey buu yidhi qaybta camaliyaadka lagu samaynayo beerka baan galay buu yiri waa lay qaabilay wuxuu yiri kaarkaygii shaqadii wixii adigu baa layga qorqoray wuxuu yiri foom baa la ii dhiibay foomkii waxaa la iibiyay buuxi foomkii baa wuxuu yiri kulli waan buuxiyay buu yiri kulli meel kasta wuxuu yiri ha bes aan ku qoru yiri marka wuxuu yiri markii aan foomkii buuxiyay baa wuxuu yiri baaritaan layga qaaday baaritaanka wuxuu yiri dhiigga guud wixii adigu inay labada iswaafaqaan waaye maxaa dhihi jiray labada maxaa dhihi jiray hilibkiisa adiga inay iswaafaqi karaan isaga beerkiisa iyo beerka gabadha jirkeeda micnaha inay iswaafaqi karaan markaas wuxuu baaritaankii markii la ii dhameeyay be waxaa la idhahay buu yiri iska bax haddii ay iswaafaqaan annaga ayaa ku soo wacayna haye ayaan idhi buu waa iska soo baxay wuxuu gurigii ayaan ku soo laabtay wuxuu yiri markaan gurigii ku soo laabtay aabahay ayaa wuxuu arkay buu yiri meeshii oo dhiigga layga qaaday gacanta faashada yar ee saa loogu dhajiyo oo igu dhagan aabahay wuxuu yiri wuu yaabay maxaa kugu dhacay waxaan idhi buu yiri waxba iguma dhicin laakiin berrita haddii ilaahay idmo camaliyaad ayaan geli rabaa oo beerka ah wuxuu yiri hooyadii way soo boday waa qaylisay maxaa kugu dhacay waxaan idhi buu yiri dhib ma jiro aniga wax xanuuna ima hayo laakiin ilmo yar oo adduunka hadda wax yar joogay ayaan rabaa inaan beerkayga badh ugu tabaruco markaas wuxuu yiri hooyaday wuxuu yiri sheekadii waa la adkaatay hooyadii wuxuu yiri adiga waxaan sababa wuxuu yiri markii dambe waa ku qanciyay wuxuu wax yar kadib isbitaalka ayaa isoo waceen isbitaalkii markay isoo waceen baa imow la yiri wuxuu waan tagay markaan tagay ayaa waxaa la yidhahay buu yiri gabadhii yarayd eed rabtay adiga inaad beerka ugu tabarucdo waa isyeelan waayeen adiga beerkaaga iyada keeda micnaha jirkeeda inay isqaataan waa isyeelan waayeen haye ayaan idhi buu yiri markaasuu la iibi yiri laakiin waxaa jirta gabadh yar oo kale oo adiga iyada isqaadan kartaan oo iyadana u baahan in beer loo gooyo iyadana u baahan gabadha kale ma siinaysaa beerkaaga maadaama gabadhii adiga aad ugu tabarucaysa is yeelan weydeen
middan kale ma siinaysaa? markaasaan idhi buyi haa aniga mar kastaba diyaar ayaa ahay. wuxuu yidhi haye ayaa lay dhahay, dhakhaatiirtu waxay dhaheen buyi waxaa kuu imaanaysa guddiga oo dhakhtarka ayaa kuu imaanaya. wuxuu yidhi guddigii dhakhtarka ayaa ii imaaday, su-aalo badan ayay i weydiiyeen. cid baa kuga khasabtay? ma dhibaataa ku haysata? maxay tahay sababta aad ugu tabarucaysa adiga beerkaaga? waxaan idhi buyi aniga ayaa go-aansaday, cidna iguma khasbin. marka wuxuu yidhi su-aalo badan kadib wuxuu yidhi arrintii waa iswaafaqday. waxaa la idhahay buu yidhi marka haye waad gelaysaa camaliyaadka, gabadha yarna beerka waa loo goynayaa. marka waxaa haddana iisoo galay ayuu yidhi gabadha yar aabaheed iyo hooyadeed ayaa iisoo galay buu yidhi. aabaheed iyo hooyadeed wuxuu yidhi markay iisoo galeen, aabaheed wuxuu yidhi buu yidhi waxa aad rabto sheego. haddaad lacag rabto ma gaari baan ku siiyaa, ma lacag baan ku siiyaa, ma guri baan ku siiyaa, adiga waxaad rabto sheego. markaasaan idhi buu yidhi aniga waxba uma baahni ayaan dhahay buu yidhi. laakiin hal wax ayaan u baahanahay. halkaa waxna waxay tahay duco, inaa idinka ii ducaysaan bas ayaan u baahanahay. wuxuu yidhi ducadii la ii duceedo. wuxuu yidhi qolkaygii baa lay geeyey, laygu samayn lahaa camaliyaadka la iigu samayn lahaa baa la igeeyey. gabadha yareynna igama dheerayn, iyadana agtaydii jiiftay. waa la isuuxiyey, sidii ayaa beerkii looga jaray. gabadha yareynna beerkii wuxuu yidhi loogu beeray. marka muddo ayuu koomihii ku jiray. markii uu soo miyirsaday baa waxaan soo miyirsaday biyo anoo qaylo zaa'ida qaylinaya, aad u qaylinaya, oo haddana dhahaya biyo away 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 dhahaya ayaa soo miyirsaday buu dhahay. wuxuu yidhi kalkaaliyaashii iyo dhakhaatiirtii iyo kulli waa isugu kay imaadeen. waa la idejiyey. waxaa la idhahay buu yidhi gabadhii yarayd way caafimaad qabtaa. say tahay way caafimaad qabtaa. hadda aweydi waxaa la dhahay bishaaro, camaliyaadkii waa lagu guulaystay, gabadhiina waa qalitaankeeda, iyadana waa lagu guulaystay, kaagana okay waaye, keedana okay, alxamdulillah labadiina waa fiican tihiin. marka wuxuu dhahay isaga intaas aniga aan qaylinayay buu dhahay waxaan dareemayay buu dhahay markaan soo miyirsaday xanuun zaa'ida ayaan dareemayuu dhahay, oo welibaan gudaha ka dareemaya maadaamuu yahay qof beerka laga qalay oo beerkiisa uu dhaawac yahay. wuxuu yidhi xanuun zaa'ida ayaan dareemayey. haddana wuxuu yidhi xanuunkaygii dhannaa aan dareemayey waxaan ku ilaaway ayuu yidhi gabadha yarta ah ee aan sabab u noqday inaan nolosheeda qayb ka mida aan badbaadiyo ayaan wuxuu yidhi aad ugu faraxsanaa ayuu dhahay. wuxuu yidhi muddo adiga 14 beri mise 15 beri meelahaas ayaan wuxuu yidhi isbitaalkii ku jiray. kadib wuxuu yidhi waan ka soo baxay. gabadh yara sidii ay ku bogsatay, isagiina wuu bogsaday. labadoodiiba alxamdulillah way soo baxeen. markii la wareysanayay waxaa la weydiiyey wax isbeddel ah oo markii qalitaanka hadda intii lagugu sameeyey iyo ka hor isbeddelka u dhaxeeya hadda adiga noloshaada u dhaxeeya muxuu yahay ayaa la dhahay. wuxuu yidhi isbeddel weyn ayaa u dhaxeeya. sababta wuxuu yidhi ilaahay wuxuu ii sakhiray buu yidhi bini aadamka dhan ayuu ilaahay ii sakhiray buu yidhi wax kasta way ii sakhiraadeen. wuxuu yidhi teeda kale familkayga aniga wuxuu yidhi carruurtayda ha ahaadaan, xaaskayga ha ahaato, waalidkayga ha ahaato, maxaa la dhihi jiray familkayga wixii qaraabadayda ugu hareeraysanba ha ahaato. wuxuu yidhi farxad, raynrayn, dhibaato la'aan, dee mushkilad la'aan ayaan ku noolahay biyo hadda. farxad aad u weyn ayaan hadda ku noolahay buu yidhi. marka wuxuu isbeddel weyn ayaan arkay biyo. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa wuxuu wax kasta ii sakhiray, wax kasta iisi iiga dhigay. marka wuxuu yidhi wanaaggii aan sameeyey aakharaba intaan la gaadhin adduunka ayaan ku helay. wanaaggaas adduunka ayaan ku helay ayuu dhahay. asxaabey qisadii halka ayay ku dhammaatay. qisada waxaan ka qaadan karnaa wanaagga qofka horta hadduu wanaag sameeyo, wanaagga wax lagu doorsada ma jiro, wax lagu beddelan karana ma jiro. sababtoo ah hadda ka soo qaad 2 qof oo adiga aad taqaano, adigaaga hadda imaqlayo aad taqaano,
hadduu qofna kuu xun yahay qofna uu adiga aad kuu wanaajiyo oo qof ku xushmeeyo oo kuu roon adiga dee aad kuu qadariyo uu yahay markasta ayaad jeclaanaysaa qofka ku xushmeeya ee wanaagga ku tusa ayaad jeclaanaysaa sababtoo ah waxaad ku jeclaatay waxay tahay wanaagga uu ku tusay wanaaggiisa ayaad ku jeclaatay iskama aadan jeclaanin wanaaggiisa ayaad ku dooratay marka kuwii wanaagga ku dadaala ee uu isu gargaara ee wanaagga isku raaca ee isku kaalmeeya ilaahay ha inaga dhigo videogan inta ayaan kusoo gabagabeynaya asxaabay haddaad video ka hesho like noo saar commentiga wixii ra'yigaaga aan nagula soo gudbi hadaad qisooyin kuwan oo kale maqasho ama kuwa kasii yaabadanba aad maqasho waad nagula soo xiriiri kartaa aad ayaan idin salaamaya walaalahayga qaaliga ah